hadduu commentiga uu yahay nabi alayhi salaatu wasalaam haddii aad jeceshahay like saar iyo haddii ilaahi waxyaabahaas wax ku saabsan dhan hadduu commentiga uu yahay kuma siin doono iPhone-ka hadal kale ka qurux badan oo ka macaan badan oo hor loogu soo guuleystay ku soo qor laakiin waxaa ku jirto maadaama Soomaali aan nahay maama Soomaaliyeed oo la dhaho maama qamar sawirkeeda meesha saaran booliska ayaa soo bandhigay waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed Allah u naxariisto dadkii ninka cunsuriga ahaa sida arxan darada ah oo ugu dilay iskuulkaas ayay ka mid ahayd ay ku jirtay iskuulkeena wax ka baranaysay haddaba maama qamar waxay if uga tagtay السلام عليكم ظهر وناكسن قلب وناكسن طبعا أصحابت ميل والبودنك جوجتين الصونا قدام بوحي سلام وأنا جوا لكن محمد بسكوت كاتوس نقل ساعتين وشانل كينا محمد بسكوت أفشل هدي عم نقول عصبت أو يتمرك وريسنا صباقتي فيديو لايك صار شانل إلى ديرا كوجرتو لايك تاس وكاعد سنة بليس أضل لايك صارين وين قاعد ينسى لايك تكبين أضل لايك صارين لايك وحين قاعد ينسى شانل كينا إلا دكبحضو وحين قاعد ينسى شانل كينو كرؤوس وقع أو ضد بدن وجاره وحرب مقالك إننا وحير كده إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون دلكي أما ويركي أرجع حسدها كدع ودك سويدن ويركي أوح ما أو أبت ودك سويدن أنت إلا يهدى أن أوجه هي كدع أيوه وانين يعني عنصرية نيك سويدش كعنصرية مركي أو ويرري سكول كيال ودك سويدن جارهن مجال أوروبرو إن شاء الله مقال كان أنت نوجد جلين waxaan rabaa asad xajiyo oo lagu dhagan yahay ark asad xajiyo youtuber ka caanka ah oo lagu dhagan yahay muuqaal ayaan dhaweyd uu soo duubay cod yar uu dhahay ayaa lagu heystaa asad oo waxaa la yiri waa in uu gafay asad dad baa waxay ku leeyihiin nabigu ku gafay diintu ku gafay asad marka ma qaldamay oo ma gafay oo maqaladu ku jira mise asad sida hadalku u dhahay ma dadka si kale u qaateen bal horta wax yar ila daawad muuqaalka asad lagu haysto asad xaji على يابا كومنت إن سقطت النبي كسله عليه الصلاة والسلام إله درتي يهدي القرآن جعشة وحيابها صدقا ما خادن دونه والدجنين حسوسنا هذا هدو كومنت جاي وياهي النبي عليه الصلاة والسلام هدي أجعشة لايك صار هدي إلهي وحيابها صدق كساب صدقا هدو كومنت وياهي كم سين دون آيفون هذا كله كخروح بدن أو كمعان بدن أو ظهر لو سوق جولستي كسقر muuqaalkaas yaroo aragteen asad xaajiyo ayaa baraha bulshada lagu faafiyay oo dadka qaar si gooni midba si ugu falceliyay qaar ay leeyihiin asad gaalnimo ku dhacay qaar ay leeyihiin asad wuu dambaabay ka toobad keeno qaar ay leeyihiin asad wuu qaldamay qaar ay leeyihiin ma qaldamayna sidan buu ka waday wuu saxan yahay haddaba muuqaalkaas ama ereygaas yaroo asad yiri xaguu ka yimid anigu samaxay ila tahay horta asad hadalkaasi wuxuu yiri video ayaan dhaweyd oo youtube-kiisa soo geliyay barnaamijyo uu marar qabto oo uu leeyahay iPhone baan siinayaa TikTok hataa ku aragteen u maleynaya iPhone aan siinayaa dadka aniga igu xiran qofkii comment soo qoro oo like ugu badan loo saaro commentiga oo YouTube-ka waay channelkiisa mobilkaas iPhone 6 kan siinayaa qofkii comment uu soo qoro like commentiga la saaro videoga like la saar maaha ninka uu comment badnaado qofku doona hada wiil gabarba marka asad wuxuu ku soo daray dadka commentiyada soo qorayaan oo like loo saarayo kuma jiraan commentiyada dadka dhahayo inta rasuulka jecel inta ilaahay jecel iyo like ii saar dadka dhaho wax kale oo ka fiican soo gudbi النبي عليه الصلاة والسلام هدي أجعشة لايك صار هدي إلهي وحيابها صدق كساب صدقا هدو كومنت وياهي كم سين دون آيفون هذا كله كخروح بدن أو كمعان بدن أو ظهر لو سوق جولستي كسقر رسولك مجلي صلى الله عليه وسلم الله مجلي صرت أسدو وحكي وناكسن أو الله ساقر لها مجرتكو تاس صرت وكو وحكي وناكسن أما وحكي قروح بدن أو مال لو قروح مجرتو كو تاسي حوجا واكو قلدت ماشاس لكن أسد محوك ودي بركة كومنتياس محوك ودي صومالي ذا أي مجع الله يمجع صوبني إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيو هذيك سدان وده قلدا هيس بجبر سوق حديثا جبري وقاون تهي وحي واهيس ماذا هذا قاون جركي ذا دينك كقاون أما ما يلوح على قاعدة يا فنانين يجوان الشغل لو قبنا قبل بدون وده قاون يويل الأجانب كلا اسكول حجرة كلمة ده اسمك أسد حاجيو مكو قلديها مسوكو صحيح أما مكو ضد واحد دينته وبحياة والنبي وقف لجادي وهذيك أسد وحكو قلديها هاي
iyo wuxuu ku saxan yahay labadaba ayaa rabaa inaan wax yar ka dhaho. Horta in uu dhaho wax ka wanaagsan soo qor nabiga iyo sallallahu alayhi wasallam iyo haddaa ilaahay jeceshahay haddaa nabiga jeceshahay wax ka wanaagsan soo qor, horta taas waa khalad. nabi alayhi salaatu wasalaam haddii aad jeceshahay like saar, iyo haddii ilaahay waxyaabahaas wax ku saabsan dhan hadduu commentiga u yahay kuma siin doono iPhone-ka. hadal kale ka qurux badan oo ka macaan badan oo hor loogu soo guuleystay ku soo qor. qowlka yani nabi maxamed iyo alle ka wanaagsan oo lasoo qoro horta ma jirto. laakiin midda kale oo ku saxan yahayna waxay tahay oo dadkan ay ku xun yihiin hees iyo munkar iyo fisqi meel ka socda dadaa waxay ku raadsanayaan magaca ilaahay iyo magaca nabigeena sallallahu alayhi wasallam. haddii aan nabiga jeceshahay sallallahu alayhi wasallam, haddaa ilaahay jeceshahay like saar, follow isoo dhe, haddaa saan tahay, haddaa war waa qalad in meel fisqi ka socda ama munkar ka socda. YouTube-ka fiir hadda gal, video walbo lasoo dhigo, hees hadduu yahay, gabdho qaaqaawan hadduu yahay, naaga ninikina hadday yihiin, wiilal qamri cabsan hadday yihiin, dad qabiil cayna hadday yihiin, dad diinta cayna hadday yihiin, dad wax walbo oo qalada samaynaya commentiga gal. haddaa ilaahay jeceshahay like ii saar, haddaa ilaahay jeceshahay follow isoo dhe, haddaa nabiga jeceshahay sallallahu alayhi wasallam like ii saar, follow isoo dhe. waa kugu qalad meela uusan u qalmin suubanaheena magaciisa sallallahu alayhi wasallam inaad ku qortiin. asad hadda wuxuu ula jeedaa commentiyadaas oo meel habbooneyn aad ku qoraysiin magaca alle iyo magaca nabigeena sallallahu alayhi wasallam ma fiicno. wax kale soo qor oo ka hadlaya muuqaalka markaasaan soo gelin. Soomaalidaana ma aqoon darada na geynayso noo geynayso, ma jaahilnimada noo geynayso ma ogin. dadka kale oo adduunka joogo video heesa haddii la soo geliyo, heesta ama muuqaalka wax ku saabsan ayay commentiga kusoo qoraan wax fikradooda. hadduu dagaal yahay wax dagaal ku saabsan, hadduu wacdi yahay wax wacdi ku saabsan, haddii wax maanta barnaamij kaloo family laga hadlay arrinta familka, barnaamij walbo ama videogaas wax alla wuxuu ku saabsan yahay fikirkooda ayay commentiga kusoo qoraan, meel kale ma aadaan. laakiin annaga hees hadduu yahay, hadduu wacdi yahay, hadduu quraan yahay, hadduu dagaal yahay, haddii qabiil la caynayo, haddii wax la caynayo, haddii ilaahay jecesha haddaa nabiga jecesha sallallahu alayhi wasallam like isaar iyo follow isaar ayaa ku hor magaca ilaahay iyo magaca nabigeena sallallahu alayhi wasallam meelan munaasab ayna dad ku qorti meel naag qaawan naag niikinaysa iyo naag madaxeeda qaawan iyo ay wadatay gaal la joogto haddaa ku qorti walaalo adaab dambi lagu qora, walaalay adaab dambi lagu qora. marka asad wuxuu ka wadaa inta magaca ilaahay iyo magaca nabiga meel u qalmin aad ku qori lahaadeen wax wanaagsan oo videogan yani wax videogan match karaynayo dadkan aniga igu xiran aad ku soo jiidanaysid oo like lagugu saaro si aad u heshid taleefanka ku soo qor. marka asad waa intaas dhinacaas oo uu leeyahay wax ka fiican soo qor waa ku qaldan yahay 100%. laakiin meesha lagu qorin waa sax munaasab ma aha. iskuulkaas uu ku laayay dad ka badan 10 qof, dhowr iyo 10 qof uu ku laayay, qaar badan ay ku dhaawacmeen, iskuulka qaarna ay ka badbaadeen. haddaba waxaa ku jira marka dad badan horta intii ku dhimatay oo dhan kulley waxaan dhihi lahaa insha Allah xaqooda rajeynayna gaal islaam waxay ku dhintay. okay, qofna dhiigiisa in la daadiyo de gaal ha ahaado islaam ahaado waa qalad, cid ogolaanaysaan ma jirto. haddaba booliska baaritaan ay samaynayaan marka waxaan laguma degdego. dadka dhintay magacyadooda, meeshay deganaayeen, waxay ahaayeen, iskuulkii inay dhiganayeen, arday inay ahaayeen, macallimiin ahaayeen, wixii oo dhan booliska baaritaan buu sameeyey. inkastoo weli baaritaanadii ay socdaan, dadka hadda la magacaabay oo booliska ay soo bandhigeen waa dhowr qof. laakiin waxaa ku jirto maadaama Soomaali aan nahay maamo Soomaaliyeed oo la dhaho maamo qamar, sawirkeeda meesha saaran. booliska ayaa soo bandhigay, waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed, Allah u naxariisto. dadkii ninka cunsuriga ahaa sida arxan darada ah oo ugu dilay iskuulkaas ayay ka mid ahayd, ay ku jirtay iskuulkeena wax ka baranaysay. haddaba maamo qamar waxay ifka uga tagtay 3 caruur ayay lahayd. wiilal iyo gabdho waxay yihiin kulli ma arag warbixintan aqrinay, laakiin 3 caruur ay ka tagtay. sidaan maqlayna ama aan kusoo akhriyayna 15 iyo 11 jir iyo mid hadda ugu yaraan 2 sano ma dhow gali rabo. 3daas inay dhashay maamada. haddaba qorshaha maalinkaas u yaalay balaneerinka ahaa ama jadwalka u yaalay waxay ahayd iskuulka hadday ka baxdo in ay aado dukaanka weyn IKEA la dhaho oo alaab iyo jiif iyo waxay naqataba gurigeeda ay rabtay inay usoo adeegato. laakiin
ilaahay ma dhihino waqtigeeda meesha ku ekaa wax walba waa sabab ninkan waxaa la yidhi waa already nin wuxuu iska ah xanuunsan waa taqaaniin sida caadiga ah marka qof cadaan ah ama qof wadamada kale ama diimo kale haysta oo wax dilo badanaa waxaa la hadlay maskaxda loogu jiray kii aaba gabadhii ayaan dhaweyd Stockholm Soomaalida ahayd ku dilayay shaqada ayadoo ka soo baxday oo dabagalay oo ku dilay aamin inay oo malinayay haddaan qaldaneen oo shaqada ka soo baska la soo raacay oo la degay oo meesha stopka oo madaxa ugu dhuftay xabad waxaa la yidhi nin waalan buu ahaa hadda ka hor buu Stockholm dukaan weeraray miraayaduu ka jibiyey gaariyu wuxuu ka jibiyey baarkinka intuu tagay miraayadaha dee qof wuxuu iska ahaa buu waalan marka qofkan qof waalan haddii lagu dhaho dee waa u dhammaatay oo wax kiis kaluusaa la micneeda sida badanaa qof madow ama qof muslim haddii wax dilayna qurbahan la dhaho dee waa iska ogtihiin dee waa argagixisu ah haddaba maama qamar allah u naxariisto qoyskii iyo qaraabadii iyo ciddii iyo caruurtii ay ka geeriyootay sabr iyo iimaan allah ka siiyo kitaabkeedana midigta kitaabkeedana ilaahay midigta ka sii qabrigeeda allah u waasi caruurteedana heli maayaan kulley qof la mid bedel khayr qab allah sii caruurta kulley aabbahooda lama sheegin aabbahooda inuu wadanka joogo inuu ka maqan yahay inuu nool yahay inuu dhintay ma arag haddii aabbaha uu joogo caruurta aabbaha unbaa loo dhiibaya kulley booska hooy sidiisla u banaanaana hadduusan aabbihii wadanka joogin ama uusan nooleenba dee ehelkii iyo dadkii ugu dhawaa insha allah waxaan rajaynaynaa in loo dhiibo inay gaalay ama dad kale u gacan geli lahaayeen hooyadaasi inta ku dhimatay oo dhanba sabr iimaan allah kasii qoyskooda qaraabadooda halis ilaaliyo markati waa halaawday Soomaali haddaan nahay halis ilaaliyo ama Yurub joog ama Mareykan joog wadanadan jooga anaga waxaan lama dhahay habeenkii jaakadahan ay xiranaysiin mugdiga soconaysiin koofida jaakado madaxa gashanaysiin haliska ilaaliyo gadaashaada 2 tilaab 3 tilaab hadaa qaadid eeg meel mugdi markaa maraysid hareerahaaga la soco waa aragtay dadkan wadamadan kala cadaankan iyo ciday doonaan hada Swedishka wadanka dadkay hadaanba meelaha tareemada laga raaco ama basaska laga raaco hadaa ku aragtid geeskaas uu ka taagan yahay intaas uu dhaq afarta dhinac eegaya diyaar uu ku jira anaga laakiin koofiya iska gashanayna laba dhigan mobilkan gashanayna ama TikTok aan daawanayna ama waxa heesan ama telefoon aan ku hadalna ama heesan dhageysanayna labada dhig dhub gadaasha hadii la soo maray hadii lagu soo daba socdo xabada la riday ma maqlist marka banaanka u socotid gaar ahaan hadii habeen tahay oo meel mugdi ah maraysi gabar yahay shaqo ka imaatay gaari hadaa haystid horta alxamdulillah hadaadan gaari haysanina halis ilaaliyo حتى gaari dad waxa haysto oo jiro parking iyo guriga xoogaa ay kala fogto meel yar oo mugdi alla soo maray halis ilaaliyo ilaahi ana ilaaliyo dhagahana wad gashanina marka baaritaana kala socdo ayaan dhaweydna waxay ahayd gabar Soomaaliya ku jirtay aamin in la dhahay umalayna ayadana oo iskuulkan dadka ka badbaadi ku jirtay waxay tir markii qaraxa xabadaha qaraxa wadankii aanu programsan xabadaha wax ninka markuu bilaabay aniga iyo macallimad waxaan isku xirnay qol kamida qolalka iskuulka miiska hoostiisaan galnay ilaa boolisku ka imaadana oo booliska albaabka soo jibiyana ma soo bixin albaabka hoos ka xiran waqtigeeda wax ka dhinaa sidaasii ku badbaatay midaan iyo sawirada badan oo meesha saarno aragteena waqtigeeda dhamaaday gabadhan maamadan ilaahay sabri wax ka siiyo kulli waqtiga meesha ku ekaa waqtiga ninka dilay oo dhibkaas geystayna sida ay warbixinta ay sheegeen wuxuu ahaa nin Swedish inkastoo asagan uu isdilay marka wuxuu ku qaylinay baa lii markuu dilay xataa Yurub baa idinka celinaya wadamadiina idin celinaya dadka ajaanibka ama dadka soo galootiga necab ayuu ahaa